arrimood ayaan cali mahdi ilaahay u naxariistay ku xusuusanay. mid waxa weeye bishii May 1991 markii reer waqooyigu ay goosteen dawladdii Soomaaliya oo kolkaa ka mid ah anigu lacagtii shilin Soomaaliga way bedeshay waxay ku bedeshay lacag loo bixiyay new currency la oranayay laakiin inagu nacdaynu u naqaana ali Europe waxay u ogolaatay lacagtii hore intii ku jirtay kaydka in la isticmaalin dawladda cali mahdi baa loo soo tagay arrintaa isaga waxaan ku xusuustaa reer waqooyiga oo goostay oo ku dhawaaqay bishii May 18keedii ayuu marti qaaday oo wafdi ka yimid halkan wafdigaana lacagtii waxbuu ka siiyey ujeeddadu kala ahaana waxa weeye inuuna cadowtinimo u qabin goosashadoodaas una kaba xumayn laakiin ay tahay sidii Soomaaliya isugu soo noqon lahayd inuu lacagtii qaybtoodii siiyo war fiicanna hotel gurgurta loo dhan jiraa la dejiyey waxay ahayd waa taariikh cali mahdi uu lahaa weeye u galaysa talabaad waxay ahayd shirkii lagu qabtay Addis Ababa 93 isagoo madaxweynaha oo la yidhi Soomaali waa la heshiisiinayaa wuu tegey shirkii buu miiska u saaray uu yidhi madaxtinimadii way iga tan aniga Soomaaliya heshiiso labadaa arrimood waxay caddaynaysaa inuu ahaa shakhsi midnimo Soomaaliyeed jecel nabad Soomaaliyeed jecel dadku inay heshiiyaan jecel ayay taariikhda u galaysaa oo aniga iyo kolkaa dadkii waqtigaas jiray ee siyaasadda ku dhex jiray aanu ognahay cali ilaahay ha u naxariisto jannadii firdawsa ha geeyo Soomaali oo dhan samiriye iimaan Allah ka siiyo qaraabadii iyo ehelkii uu ka tagayna samiriye iimaan Allah ka siiyo idinkana waa idinka mahad celinayaa يعني آسكيسي iyo qabanqaabadii iyo wixii aad samayseen waxa weeye waad ku mahadsantiin aad iyo aad baad ugu mahadsantiin